agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Somaliland Cismaan Axmed Warsame iyo wafdi hogaaminayo oo kormeer shaqo ku marayay maalmaha gobolada bariga Somaliland oo maanta ku sugan magaalada Burco ayaa kulan la yeeshay madaxda hay'adaha UNICEF Bishacas iyo Escado kuwaas oo ah hay'adaha wasaaradda caafimaadka ay ka dhaxayso wada shaqayntu kulankan oo mid lagu la fogurayo horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer gaar ahaan barnaamijka xidhmooyinka caafimaadka ee ka socda gobolada Daadmareer Saraar iyo Bohole sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa waxa uu kulan la yeeshay guddiga caafimaadka gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta caafimaadka isbitaalka guud ee magaalada Burco agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Somaliland Cismaan Axmed Warsame oo isagu warbaahinta uga waramaya muhiimadda safarkiisa ayaa waxa uu yiri marka iminka Togdheer waxaan u soo marnay inaan arrimahan caafimaadka xamuulkan leeyno runtii si fiican ugu dhimaaday waxaan jecelahay inaan xoojino xiriirka wada shaqaynta communicationka iyo sidoo kale wasaaradda dhawaan aan sponsornay madaxdii waxyaha taasoo aan ku rajaynay in kogal iyo degdeg farabada sidii markii hore nooga bartay inaan ka sii xoojino waayo caafimaadku yahay meelaha ugu muhiimsan qof kasta shacab taaban karayo waxa ay tahay ahmiyadeeda iyo goolkeeda koobaad in qof kasta uu helo caafimaad taami ilaahay caafimaad bixiye inuu helo access health facility la kordhiyo in hooyooyinka dhalaanka isku dhiman la yareeyo oo aan yareeyno insha Allah iyo sidoo kale inaan la dagaalanka communicable disease iyo non communicable aan xoog saarno haday noqoto cudurrada TB-da malaria-da iyo hepatitis oo ku badan dalkeena iyo HIV-da runtii waxaan jeclahay inaan ku soo noqono halkan si aan gobol kasta hawshiida u wadno waxaan oo qorshaysan inaan bisha inta ka hadhinaan gobolka Awdal aan qabano gobolka Sanaag markii ugu horeysay tan halkan iman kaasoo aan kormeer ku soo marnay isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Cabdi Yaasiin oo ka warbixinaya hawlaha caafimaadka gobolka Togdheer ayaa waxa kamid ah hadaladiisii waxaan ka hadlaynay horumar halka uu maraya caafimaadka gobolka iyo waxyaabaha loo baahan yahay lagu dardargeliyo aad aan u faraxsanahay inaan kusoo dhaweyno waftigan faraha badan ee hay'adaha iyo wasaaradda ka socda oo runtii wax weyn oo qabtay sidii aan u kor u qaadi lahayn adeegyada caafimaadka dadka waxayno wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa dadaal weyn ugu jirta horumarinta iyo kor u qaadida adeegyada caafimaad ee gobolka Togdheer Kays Axmed Digaale on Cable TV Burco.